in guurka wuxuu yahay aan la aqoon daayartu gaar ahaan markay guursanayaan guurka waa loo ammaanaa waxaa lagu soo ururiyaa guurka macnihiisu bisha iyo dhowrka bilood hore arooska lagu soo ururiyaa waxa ka dambeeya looma sheego waa la sheekaystaa waageennan dambe gabadhu waxa walba okay way dhahdaa okay wiilkuna wax walba okay misraid iyo mistraid baa isguursanaya misraid iyo mistraid baa isguursanaya marka wiilka maskax wuxuu qaadanayaa laba qodob ka kooban ay gabadhuna la qabto kow qofkan aad guursanaysa waa malag wax walba waa okay malaa'ig aan waxba khaldamaynin waxba la isku diidaynin maskaxa waa informationka khaldan waa la isa siinayaa iyaduna information khaldan bay siinaysaa waagi hore ragga waxaa la dhihi jiray haweenka been baa lagu soo xerogeliyaa runtana waa lagu dhaqaa dumarkii laftoodu khadkii iyo taktikadii laftooda ragga hadhow dhabtaad ku dhaqi doontaa ee beentana waa lagu soo xerogeliyaani dumarkiina waa ku soo biireen bal adigu sheekooyinka la qoree la isku shukaansado ama dhallinyarta la sheekayso warayso ama meelaha baraha lagu qoro akhri qof walba malab iyo jaam iyo bacaan baa la wada marinayaa meel qallooc iyo sakalle waa laga ilaalinayaa hadhow laakiin maxaa la ysugu iman dabeecaddii ilaahay ku abuuray iyo aadam iyo duruuf nololeed baa la ysugu iman laba guurka markay ka sheekaynayaan waxaa la waraystaa qofka guurka cusub ee daayarta guursanaysaay dadkii hore u guursaday ma waraystaane intay marxaladii arooska soo dhaafeen nolosha xaaladeeda kala duwan galay lama waraysto gabadhu gabadha yar bay waraysataa wiilkuna ninka dhallinyaradee la da-da ahaa ee hadda guursadaye carabigaba lagu yidhahda shuhuurul casalka la waraysan guurkuwa mutca iyo macaankaasaa laga haystaaye mas-uuliyad dheer iyo culays dabada inuu ku wada laguma tashadaba mas-uuliyad dheer buu wataa saas darteed marka u horaysa ee gabadhii ilmo calool galay wallac noqoto qaar baa ninka lagu diri oo nici dhih qaar baa guriga lagu diri qaar baa cunada lagu diri qaar baa waxbay nici dalaaq badan wuxuu dhacaa wax fikrada lagama haye gabadhii shalay okay la islahaaye usbuuciya bil wada joogay ninkii bay ka soo booday xaalad ku soo korodhay inay tahay warba lagama hayo markaasaa la isfuriyo hadhow baa la dhihi sheekh dalqad baan ku furay ee qiil ma la ii haya seen yeela ma ogeynoo gabadhu wallac bay hadna waxaan waxba kama aqoonin marka hore ilaa waraysta lama ogola mid baa iyadii nici mid baa guriga nici xaalad maxaa ka dambeeya ilmaa dhalan qota reerkii kharash badan baa dabada ku haya yaa ka bixi karaba la isma dhihin ilmaa dhalan saddexdii saacba ugu badnaan mar in loo soo tooso u baahan na ilmahana dhaafi una hurdo seeji suuxii baan kan lihi habeenkiibaa hurda la-aan horta marka horeysa garaan labada cusubi inaan habeenkii ilmahan si loola dhaqmo ma yaqaanaan reero badan baa markii ilmuhu yar yahay oo cusub yahay isku fura maxaa yeelay si loola dhaqmana ma yaqaanaan ilmo yaroo dhashayna calooshiisu waa yartahay saacad iyo badh 2 saacadood 3 saacadood ugu badnaan markuu dherga sabri karaa reerkii waxaa laga yaabaa hal qol iyo fadhi baa la degan yahay xagee ilmihii la aadi nala dhaaf ilmahan seexani iyo waa hurdo seejisay dagaalkii ka bilowday ilmahaadan rabin qub iyo qacdaasuna guurkii mas-uuliyad dhaqaaluu leeyahay mas-uuliyad sabir dulqaad buu leeyahay xuquuq baa kugu waajibi gabadhu xurriyad bay lahayd caawo iska cawaysimi jirtay dadkay rabtay la haasaawi jirtay markay hooyiya reer noqotaay hoggaan bay gashay maamul bay gashay hadda xaafadiina markaad joogto xor baa tahay laakiin maalinkaad shaqaalo noqoto saacad baad ku iman xilligaad birrif leedahayd suuliya musqul aadi karta wuu tirsan yahay xilligaad soo yar jireen waa tirsan yahay xilligaad shaqada ka rawixina waa tirsan yahay markaad soo gasha waad saxiixi markaad baxaysana waad saxiixi maxor baa tahay saad gurigeena u joogteed balooni ciyaaraysa iskuul ha lagu geeyo fiigaasaad bixin saacadaasaad soo xaadir saacadaasaad rawixi sidaa ma samayn kartid waxaa ma qaadi kartid cashar dheer baa kuu yaalla gabar bay bannaan iska joogtay ahaydee reer bay noqotay gurigaasaa joogtaa intaasaa lagaa rabaa waxaasaa lagaa rabaa waxaa ma samayn kartid waxaa ma samayn kartid amar baa ku bilaaban gabadhii shalay xorta fariiga ahayd saa ha yeeli saa ma yeeli kartid turbo waxay leedahay meeshaa soo gashay gumaysi baad soo gashay meel addoonsiya baad soo gashay qub iyo qac ninkii shalay haddii uu qado u baahda saaxiibbii iskala qadayn jiray
iskala soo cashayn jiray dee xaafad baa casho looga talagalay meel kale wax kama soo cuni karo isna wuu xoogay caburis iyo in lugaha laga xidhay uu dareemi saaxiibadii baa ku dhihi raggu markaad tiraahdo war anugu xaafad baan casho ku leeyahay kuwa xarig lama sitaana kula xiriira oo waxba dan ka lahayn xuquuq waa kugu waajibtay qof baa dab galay raashin baa xoolaha khasaaraya garaan xilliyada hore carruur cunaysa ma jirto guriga raashinka hadduu ninkii ma waayo waa in la daadiyaa xoolaha khasaaraya dad baa rafaadaya dad bay mooraalkooda ku dhimaysaa rag baa hareeraha ka gelayo markii hal cashayo la yiraahdo uu yiraahdo ma xaafadaan tagaya ma qadada tagaya war kan waa la qabaa inaga daaya leeyahay war kan waa laga adag yahay naga daaya kan misaas dhaqaajin kalaba rumuud baa lagu maamulay isna markaas uu leeyahay xorow uu leeyahay qoorta la isla galaya cunadan kugu dhadhamin miya ha meelkaada ka soo cashaysay tan aad rabin xadabka noo gelinaysay halka waxa ka imanaya dadan xuquuqda iyo waajibaadka reerka waa aqoon gabadhu waajibkeeda ma taqaan ninkuna waajibkiisa ma yaqaan wadada laamiga gawaarida maraysa haday dhowr darawal gawaari ka xeeyaan xeerka jidka aqoonin oo soo baran soo food isla wada galaan ma kii baasay jakshanka kii hor lahaa ma yaqaanaan rawra boodka kii hor gelin lahaa kii istaagi lahaa ma yaqaano markuu socdo haadka uu leeyahay meeshuu ka leexan ma yaqaano wadaduna gaari ku kaxeeyay boqol inuu saaraa laga yaabaa waa shil badan inuu sababa xaafadda shilkeedu waa nin iyo naagis qaba oon xuquuqda iyo waajibaadkooda aqoon isku dhaca badanaya marka gaarigu hadduu shilkiisu bato marka dambe right off uu noqdaa waa la tuuraa qoyskana shilku markuu noqdaa bataay waa la kala haadaa kalsoonida lunta qayrada badata dagaalka bata gurigii meel lagu nasan waayo noqdaa haweenka gabadhuna ninkii markuu soo socdo balaayi baa soo socotay ninkuna guriga markuu ku soo socdo sharwadadii baa u socotaa buu dhigtay qayrada badnayd sadarta Soomaaliya waxay yiraahdaan nin dagaal badnaa baa qabiil intii la jebin jireen la soo ceyrsaday baa orad lagu gaari waayay ilaa uu reerkii kor yimid gurigii markuu kor yimid buu istaagay isagoo taagan baa la qabtay nin oday wuxuu yiri war ninkii inta aan gaari weynay guriga korkiisa aan ku qabanay isagoo taagan bala waraysanna waxa istaajiyay markii la waysaxay islaam qayliya dagaal badan baan qabaayo waxaan irigu intaada guriga gelin horta bal qayliya dagaal dhageyso inta xaqana mashquulisay adawii daba socday waa ka mashquulay raggu qaar baa ku imanaya marar badan wuxuu leeyahay saan u faraxsanahay markaan guriga ku sii socdo baa waran ay gelin falaarin baa la iga taagay gurigiiba wuxuu ku noqday tagitaankiisa iyo iyadiiba balaayo saas darteed Soomaalidu reerka khilaafka badan ee isku dhacdhaca waxay ka cabireen hadii sida xun loo fasiro nin iyo naagti waxay dhaheen qalna maaha nabadna maaha heshiisna maaha qalna maaha colaad kala tagayna ma wadan baa isku qabatay nabad iyo wanaagna lagu wada joogo marka reer wada garaafaysanoo wala geeska kaga nabad kaga yaalo sidii gaariga sheelka badan galaya hadii uu bata reerka inuu burburo waa dabiici kalsoonida loomi deganaanshihi waa loomi qayla iyo sawaxan baa la noqon wax kasto midkood sameeyo sida ugu xun baa loo fasiri sida ugu xun baa loo dhigi taasina